السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة كان هاني منوعات على بين جلس عطان ما أنت نوحان إذا سوقد بدون قصة أما عضدان إنه وحي أكل عضي ودن كسويدن كارهان مقالة سيوتو بوري عضدان وحي عضي لاتن سيال كديسمبر لو ذكوني سجال إيطوانكي وحي نكد عضي مقالة أما حافظ لكم مقعبة يلبو وحي كسر عطان قصداني كبر لكم مقعبة نانسي تفسن نانسي وحي دلت تضوضي ماش كون سجال بقول سجاشن إيكودي وحي إنه dhalatay magaalada Göteborg wadanka Sweden waxay la kortay Nancy laba walaaladeeda ah iyo hooyadeed iyo aabaheed waalidiinteeda. Nancy waxa ay ahayd qof farxad badan, dabeecad wanaagsan oo furfuran, waxayna jeclayd muusiga, waxayna heesi jirtay, waxa oo kale ay garaaci jirtay gitaarka marka aysan iskuul jirin ama ay waxaynin. waxay fariisan jirtay qolkeeda waa ayna heesi jirtay Nancy mararka qaar. waxa ayna ka qayb gashay barnaamijka lagu magacaabo Idol kaas oo ay ku soo baxaan fanaaniinta iyo dadka talentiga leh, balse nasiib uma yeelanin in ay ku guuleysato. waxay ahayd gabar yar oo mustaqbal wanaagsan leh. Nancy waxa ay baratay cilmiga bulshada iyo dhaqaalaha, waxa ay kaloo ay baranaysay cilmi nafsiga, balse Janice uma helin in ay ku guuleysato mustaqbalkeedii ay soo hordhigatay ama ay ku dadaalaysay. sababtoo ah Nancy waxa la dilay iyada oo 18 jir ah 29 December 2019. Nancy waxa ay aaday xafladaas oo ka dhacaysa xaafadda lagu magacaabo Yelbo ee magaalada Göteborg magaalada Göteborg wadanka Sweden. xafladda dhalasho ayay ahayd xafladaas oo dhiganay qof kamid ah asxaabteeda Nancy aad ayay u faraxsaneed inay xafladaas aado. waxa ayna u sheegtay waalidiinteeda inay guriga ku soo laaban doonto 1 habeenimo. waxaa la gaaray 1 habeenimo, Nancy ma aysan soo laabanin oo guriga ma imaanin. waalidiinteedana waxa ay bilaabeen inay ka walwalaan Nancy haba ahaato badnaato hooyadeeda oo si aad ugu walwaleysay Nancy hooyadeed waxaa la soo xiriiray Nancy saaxiibadeeda asxaabteeda qof kamid oo ahay Nancy saaxiibteeda. markaas Nancy hooyadeed waxa ay dareentay ama ay fahantay markaas inay gabadheeda wax ku dhaceen Nancy hooyadeed iyo aabaheed waxa ay aadeen meeshii ay wax ka dhaceen. Nancy saaxiibteeda oo la soo xiriirtay Nancy hooyadeed waxa lagu magacaabaa Julia iyo Nancy waa laba qofood oo saaxiibo ah. Julia waxa ay deganeeday ama ay daris la ahayd Nancy xaafadooda. inta aysan wax dhicin ka hor ayaa waxa soo wacday Julia, waxa soo wacday saaxiibteeda Nancy, waxayna u sheegtay in xafladda ka soo tagtay ee xaafadda u socoto. waxayna ka codsatay in telefoonka ugu jirto uu sii sheekayso ilaa ay xaafadda ka tagayso. Julia ayaana ku tiri okay ku imaada oo ku soo kaxeeya soo raacna. waxayna dhahday dhaqsi waa jooga xaafadda, telefoonka bas iigu jir waan imaanaya xaafadda oo iigu helay. Julia iyo Nancy waa ay sheekaysanayeen. Nancy waxay u soo socotay xaafadeeda. wax yar kadib Nancy ayaa qaylisay iyadoo ahayso 3 jeer maxaa rabtaa, halo maxaa sameynaysaa. kabacdina jug ayay maqashay gabadha saaxiibteed ahayd. telefoonkiina waa uu go'ay. waa ay ku celisay, telefoonkiina wuu dhici waayay. Julia way soo carartay, waxay imaaday banaanka iyadoo qaylinayso. waxay dhahday waxa u maleynaa inay wax ku dhaceen Nancy. Julia waa ay carartay, banaanka ayay u carartay. waxayna aaday dhankii Julia ee Nancy ka soo socotay. markii ay carartay waxa ka soo daba cararay Julia aabaheeda si uu u caawiyo gabadhiisa inuu u helaan Nancy. hase ahaatee waa ay kala carareen. Juliana waxa ay wacday Nancy hooyadeed, waxayna u sheegtay sida ay wax u dhaceen. Nancy hooyadeed iyo aabaheedna gurigii ayay ka soo carareen. waxa ay aadeen meeshii xafladda dhinaceedii Nancy oo aan saas uga fogeen Nancy meeshii joogto Julia aabaheedba. waxa ayna raadinayeen Nancy. waxa ay raadiyaanba meel duur ah oo geedo hoostood ah oo ayaa waxa ku arkay Nancy oo xabad u taalo Julia aabaheed. wuxuuna ku qeyliyay waatana waan helay. meesha dhan waxa yaalay Nancy dhiigeeda. Nancy dariiqa ayaa wax lagu la soo dhuftay, waana la soo jiiday. wadadii ayaa laga soo jiiday, waxaana loo jiiday dhinaca iyo geedaha iyo duurduurka.
meesha dariiqa ahna waxaa yaalay Nancy dhiiggeeda ayaa meesha dhan daadsanay Yulia aabaheed markuu arkay Nancy waxay u taalay xabad dhiig fara badan waa uu ka socday Nancy waxa uu dhaawac ka soo gaaray madaxa jirka oo dhan waa laga garaacay laakiin waxa ugu darnayd qaarka kore Nancy waxa lagu dilay dhalo waxaana meesha taalay dhalada jabkeedii waxaana laga helay burburka dhalada Nancy dharkeeda iyo waliba jirkeeda qaarka dambena dharke uu ka qaadnay oo qaarka dambe ayay ka qaawaneed Nancy Yulia uu tagay aabaheeda uuna taabtay wuxuu dareemay inay weli nooshahay oo ayna dhimanin Yulia aabaheed ayaa wacay ambulance wuxuu wacay lambarka degdega ah isla markiina waa ay u imaadeen oo meeshii ayay ka qaadeen Nancy markii la qaadayay waxa ay ahayd saacada 1:24 daqiiqo oo habeenimo saqda dhexe Nancy aabaheed iyo hooyadeedba goobta ayay imaadeen balse waxa ka soo hormartay ambulance oo Nancy ambulance ayaa la saaray waxayna imaadeen aabaha iyo hooyada Nancy dhalay iyadoo ambulance si dhaqaaqayso waa ayna daba raaceen oo waxay u raaceen isbitaalka Nancy markaas waa ay nooleed balse isbitaalka markii la geeyay ayay Nancy dhimatay saacada markay ahayd 4:38 daqiiqo oo habeenimo waxaa la wareystay dhammaan dadkii xafladda joogay habeenkaasi markii ay ahayd taariikhda 1 Maarso 2010 ayaa loo xiray nin dilka Nancy looga shakiyay ninkana waxaa lagu magacaabay Cabdicasiis waxaana loo yaqaanay Mandela waxa uu jiray 22 sano ninkani ayaa xirnaa markii dambiga dilka lagu soo oogayay waxaana loo xiray isku day kufsi uu hore u geystay Mandela hore ayay isku yaqaaneen Nancy xafladana waa ay isla joogeen wuxuuna ku soo qoray taasida Nancy Facebookiisa maalintii markii ay dhimatay Mandela waxa uu diiday in uu isaga dilka ka dambeeyay waxa uuna sheegay inuu xafladda ka tagay uu aaday xaafadiisa Mandela si uu iskaga soo bedelo fanaanadiisa musqulna uu u soo galo markii uu soo laabtay isaga oo xafladda u socdo uu maqlay wuxuu sheegay in uu maqlay dhawaaq jab dhalo ama muraayad markii uu aaday meeshiina dhawaaqa uu ka maqlayna uu arkay Nancy oo meyd ah mana aysan qaawaneyn ayuu yiri oo markaas dhar ayay xirneed wuxuuna uu sheegay inuu maqlay guuxa gaari wuxuu yiri aan isqariyay oo waan ka baqay in liiga shakiyo aniga dilka Nancy ayuu yiri isla markiina waxa aaday uu yiri xafladii ayuu ku noqday xafladii markii uu ku noqdayna waxba uusan sheegin wuxuuna iska sii watay xafladiisa sida inay wax dhicin oo kaleeto dambi baarayaashii waxay Nancy dhiiggeedii ka heleen Mandela kabihiisa Mandela wuxuu dhahay waxa laga yaabaa inuu dhiigga gaaray markii aan helayay Nancy meedkeeda waxa la xaqiijiyay dambiga ama dilka inuu dhacay inta u dhaxaysay saacadu markii ahayd 1:09 daqiiqo ilaa 1:19 daqiiqo waxa uu dhahay dambi oogihii waxayna ahayd inuu Mandela arko wax uu sheegayo wax ka badan sababtoo ah xilliga uu dambiga dhacay waxa uu joogay isla waqtiga waxa kale oo loo arkaa in aysan suurtagal ahayn in qof kale uu ka siibo Nancy dharka kadib markii uu Mandela goobta ka tagay sidaas waxa ku andacoonaya dacwad ku soo oogay Mandela dacwad oogaha ayaa aaminsan in Mandela isku dayay in uu kufsado Nancy laakiin uu ku guuldareystay taasina ay sababtay dilka Nancy Mandela waxaa lagu xukumay 16 sano oo xarig ah waxaana loo xukumay dilka Nancy
waxaana Mandela la sii daayay sanadku markuu ahaa 2021 Maarso waxa uuna xirnaa Mandela in ka yar 11 sano. halkaas ayaan maanta kusoo gabagabeynaynaa qisadeena ama dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday wadanka Sweden. please subscribe channelkeena waxaan idin soo gudbi doonaa qisooyin iyo dhacdooyin aad u fara badan. waxaan rajeynayaa in aad ka heli doontiin la qaybso la wadaag asxaabtaada. channelkeena ku soo biir waxa ay noo tahay dhiirigelin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina.